hooyo Soomaaliyeed oo 60 sano jir ah iyo gabadheeda oo dhowr 20 sano jir ah ayaa toddobaadkan si wada jir ah hal mar ka wada qalin jibiyay jaamacadda George Mason ee gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington. hooyadan ayaa shahaadada masterska waxa ay ku qaadatay culuumta kombiyuutarka halka gabadheeda ay shahaadada bachelorka ay ka qaadatay cilmiga IT-ga. warbixintan waxa inoo diyaariyay wariyaheena Jacfar Kuukay. falxad axmed maxamuud cadde bishii maaj ee sanadkan ayay 60 sano u buuxsantay qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh 1980kii markii ay Mareykanka u soo kicitimaysay waxa ay horay u soo jicsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xooga sarto. bilowgiiba way isku dayday laakiin umaanay suurtagelin inay sii wadato waxaana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horreeyey ku curatay. gabadheedii curadda ahayd ee ku dhowaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay. maalinay baxday waxay qaadatay wixii aniga informationkayga ahaay oo dhan magaceygii dhalashadeydii social security addresskaygi waxay igu soo qortay jaamacad anuu ogeyn. maalinay waxay tiri hooyo waxaan rabaa meel inaan gaaro inaad i raacdan u baahanahay. waa i waday waxay i geysay jaamacadda Nova la dhaho oo ku taalo Northern Virginia. waxay i geysay book store-kii waxay ii gaday book bag-ii iigu horreeyay waxay ii gaday buugaagtii aan u baahnay waxay ii gaday xanshooyinkii qalmaadkii iyo calculator-kii aan u baahnay ii gaday. iyadoo da'da jirta waxa ku xambaaray in ay waxbarashada u dhabar adeegto ayay ku sheegtay in ay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay lama huraanna ay tahay in laga wada miro dhaliyo waa haddii horu kac la doonayo. waxbarashada inay tahay ma aragtay wax oo aan waxba la siisan karin. maantana ilaahay waxaan ku mahadinayaa inaan Masters of Science aan ka qaatay George Mason anoo 60 jir ah. taariikhdayda waa taas. waxaa maanta ay wada qalin jabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelorka ku qaadatay IT. aamina waxa ay dhalatay sanadkii 92kii qarnigii tegay isla xilligaa ayaa aabaheed oo u socdaalay Soomaaliya halkaa lagu dilay laakiin maanta farxad xad dhaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 60 sano jirta ay mar wada qalin jabiyaan. I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating, my mom is coming. She's graduating, she's gonna walk across the stage, and we all screamed for her. And you know, it's so hard when you're, going to school and stuff, but you do it all for this day. falxad ayaa keligeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdhaheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan. gabdhahayga waxaan rabaa tomorrow waxaan uga tago hooyadeen aniga aabahay dhul iyo maal uu Soomaaliya ka tacbay aniga dhul iyo maal aan tacbay ayagaan tacbay tacliintoodaan baxay ayaga maanta wax kasta ayaga qabsan karo laakiin hadda seentaan waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeena waxaan nooga tagtay ma fahamtay waxaan ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagay. waa wax aad u adag in qurbaha gaar ahaan Mareykanka uu xataa qofka keligii si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro. inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyay ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo. falxad halkan kuma istaagayso hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masterska ka sarreysa waxaana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahi ay waxbarashadaasi wada bilaabaan munaasabad qurana ay shahaadada PhD-da ku wada qaataan sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahi xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen. xalay anagoo joogno gurigeena ayaan la hadlay curaddeeda Safiyo waxay iyada haysataa masters way haysataa marka waxaan iri Safiyo hooyo haddaan isla bilaawno PhD aniga iyo adiga ka waran ay tiri aad baan ugu faraxsanaan lahay hooyo inaan PhD kula qaato marka waxaa dhici karto inaan PhD qaato anoo 67 jir ah. inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato qaybna ay ka noqoto sare u qaadidda heerka waxbarasho ee dhallaanka Soomaaliya.
dreamkayga waxaa waaye inaan Soomaaliya wadankii imaado inaan arday Soomaaliyeed macallimad u noqdo hooyo u noqdo oo aan wax baro haddii Ilaahay yiraahdo waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay waxaa waaye inaan cilmi ula noqdo wadankii oo aan dhaho cilmi waa kanay ka faa'iideysta haddii eebbeedmo insha Allah waxaa wejigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay rayn dheeraada waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay waa sheeko kale oo hami iyo yidadiilo ku abuuraysa qof kasta oo waxbarasho doonaya iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro waxaana la yidhaahdaa waxbarashada lagama gaboobo da' ay ku eg tahayna maba jirto